war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID oo nuqul ka mid ah soo gaadhay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV ayaa waxa uu dhignaa sida tan. Xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID waxa uu maanta ay taariikhdu tahay 11 bisha shanaad 2014 kulan ay ku yeesheen xarunta dhexe ee xisbiga UCID guddida fulinta iyo xubnaha golaha dhexe waxa ay soo saareen war-saxaafadeedkan oo ku saabsan kulankii aanu la yeelanay odayaashii ka socday waddanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya. Waxaanan ku cadaynaynaa war-saxaafadeed wixii nooga soo dhex baxay kulankaasi aanu la yeelanay odayaal dhaqameedyada ka socda koonfurta waddanka Soomaaliya. Waxaana bulshada reer Somaliland u soo bandhigaynaa dood dheer iyo falanqayn kadib. Waxaana bulshada reer Somaliland u sheegaynaa wixii nooga soo dhex baxay kulankii aanu la yeelanay odayaashaasi. Sida ay noo sheegeen odayaashu ujeedada socdaalkoodu waxay daaranayd ay ku sheegeen fadhiga aanu la yeelanay in ay u socdaan isdhexgalka bulshada. Waxaana qodobkaasi xisbiga aan u aragnaa inay bulshadu awalba ay bulshadu isdhexgeli jirtay oo aanay kala maqnayn una macaamisho sida laba dawladood oo jaar ah. Inuu yahay qodobkanina mid siyaasadeedsan oo daba socda qodobadii heshiiskii Turkiga ka soo baxay kaas oo ka hor imanaya qadiyadda iyo rabitaanka shacabka reer Somaliland. Odayaashu waxay noo sheegeen inay yihiin odayaal dhaqameed Soomaaliyeed oo dhan ka kooban una socda arrin dhaqan. Waxaanan ogaanay inay yihiin madax dhaqameedyo kaliya isla markaana isugu jiraan siyaasiyiin hore, saraakiil, aqoon-yahano, ganacsato iyo madax dhaqameed. Waxa kale oo aan ogaanay inuu jiro qorshe gaar ah oo qarsoon. Waxa intaa dheer ay odayaashu noo sheegeen inay u socdaan inay wax ka bartaan habkii nabadgelyada Somaliland ay ku gaadhay iyo qaabka ay u hirgashay dib u dhiska dawladnimada Somaliland. Doonayaan inay Somaliland ay gacan weyn ka geysato nabadeynta koonfurta dalka Soomaaliya. Waxaana ku xidhnay shuruudaha ay in marka hore ay qiraan xasuuq iyo tacadigii loo geystay shacabka reer Somaliland isla markaana ay qiraan aqoonsiga iyo ictiraafka iyo madax banaanida jiritaanka iyo qarannimada Somaliland, ixtiraamaan go'aansitaanka iyo jiritaanka Somaliland. Waxay noo sheegeen odayaashu in ay isku xilqaameen iskuna soo abaabuleen cid ka dambeysana aanay jirin safarkoodaasi. Xisbiga UCID waxa uu ogaaday in xukuumadda Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dambeysay anbabaxa iyo safarka ay ku yimaadeen Somaliland. Xukuumadda Turkiguna ay gacan weyn ay ku leedahay soo jeedin. Xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID waxa uu ummadda reer Somaliland u soo jeedinayaa markii uu arkay waxay la socdaan odayaasha ka yimid Soomaaliya qodobada soo socda. In xukuumadda Somaliland ay cadeyso mowqifka dhabta ah ee ku wajahan imaanshaha odayaasha ka yimid koonfurta dalka Soomaaliya. In ummadda iyo shacabka reer Somaliland lagu jahwareeriyo mashruuc khatar gelin kara laguna mujar habaabiyo jiritaanka iyo qadiyadda madax banaanida Somaliland. Waxaan cod dheer iyo cod gaaban ku sheegaynaa in qadiyadda Somaliland ay